Dhegayste, marnaba ha u ogolaanin inay dilanto riyadaadu. Riyadaadu waa hanti qaali ah oo aan qof kale kuu ilaalin karin. Waa himilada qalbigaaga ku jirta. Waa waxa kugu dhiirigelinaya inaad subax kasta soo toosto adigoo rajaynaya biri inay kaaga wanaagsanaato maanta. Dad badan ayaa leh riyooyin waaweyn, balse qaar ka mid ah waxay ku fashilmaan inay gaaraan sababtoo ah waxay dilaan riyadooda ka hor inta aysan fursad u helin inay rumowdo. Riyadaadu waa bilowga guushaada. Guul kasta oo maanta dunida ka jirta waxay ku bilaabmatay riyo yar. Dhismayaasha dhaadheer, shirkadaha waaweyn, buugaagta caanka ahi, iyo dadka guulaystay dhammaantood waxay mar uun lahaayeen riyo qalbigooda ku jirta. Qofka aan riyo lahayn wuxuu la mid yahay doon badweyn ku dhex socota oo aan lahayn jiha ay u socoto. Riyadaadu waxay ku siinaysaa ujeedo iyo sabab aad u sii wado dadaalkaaga. Haddii aad ku riyoonayso inaad noqoto ganacsade, qoraa, macallin, ama qof bulshada wax weyn u qabta, ha u arkin riyadaas wax aan suurtagal ahayn. U arag inay tahay u baahan dulqaad iyo dadaal. Caqabaduhu waa qayb ka mid ah safarka. Mararka qaar waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin. Waxaa laga yaabaa inaad ku guuldarraysato, lacag la'aan noqoto, ama dadku kuu sheegaan inaadan awoodin. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in qof kasta oo guulaystay uu soo maray waqtiyo adag. Guushu ma timaado iyadoo waddadu siman tahay. Waxay timaadaa marka aad sii socoto inkastoo ay jiraan caqabado. Marka aad dhacdo, ha u arkin dhammaad. U arag cashar ku baraya sida aad mar kale u sii fiicnaan lahayd. Ha dhegaysan dadka ku niyad jebinaya. Dadka qaar waxay kuu sheegi doonaan in riyadaadu aad u weyn tahay. Qaar kalena waxay ku odhan doonaan waqtigaaga ayaad luminaysaa. Laakiin xasuusnow, dadku ma arkaan waxa qalbigaaga ku jira. Ma dareemayaan himiladaada. Mana yaqaaniin awoodda Alle ku siiyey. Haddii aad mar walba dhegaysato dadka ku niyad jebinaya, waxaad lumin doontaa kalsoonida naftaada. Halkii aad diiradda saari lahayd hadalladooda, haddaba diiradda saar yoolkaaga. Mararka qaar qofka ugu horreeya ee ku rumaysan waa inaad noqotaa adiga laftaada. Dulqaadku waa furaha. Wax kasta oo qiimo leh waqti ayay qaataan. Geedku ma noqdo mid weyn hal maalin gudaheed. Ilmuhuna ma noqdo qof weyn habeen keliya. Sidoo kale, riyadaadu waxay u baahan tahay waqti, shaqo, iyo samir. Dad badan waxay iska dhiibaan marka aysan arkin natiijo degdeg ah. Laakiin qofka guulaysta waa kan sii wada dadaalka, xitaa marka uusan weli arkin midhaha shaqadiisa. Maalin kasta oo aad hal tallaabo hore u qaaddo, waxaad u sii dhowaanaysaa meesha aad rabto inaad gaarto. Kalsoonida naftaada dhis. Qofka naftiisa ku kalsoon wuxuu awood u yeeshaa inuu ka gudbo waxyaabo badan oo adag. Haddii aad aaminto inaad awooddo, maskaxdaadu waxay bilaabaysaa inay raadiso xalalka. Ha isbarbar dhigin dadka kale. Mid walba wuxuu leeyahay safarkiisa iyo waqtigiisa gaarka ah. Diiradda saar horumarkaaga. Xataa haddii aad maanta ka fiicnaato shalay 100% oo keliya, taasi waa guul. Saaxiib, riyadaada ha dilin. Ha u ogolaanin cabsi, guuldarro, ama hadallada dadka inay kaa joojiyaan himiladaada. Waxaa laga yaabaa inaad maanta ku jirto xaalad adag, laakiin taasi macnaheedu ma aha inaad hadalkaasi ku sii nagaanayso. Noloshu way isbedelaysaa. Xaaladuhuna way hagaagayaan. Marka dadaal iyo dulqaad la isku daro. Haddaba xasuusnow, qof kasta oo maanta guulaystay wuxuu mar ahaa qof riyoonaya. Faqriga u dhaxeeya isaga iyo dadka kale waa inuusan ka quusan riyadiisa. Riyadaada ha dilin.
ilaali, kobci, una shaqee maalin kasta. Waxaa laga yaabaa inaad riyada aad maanta sidato ay noqoto guushii ugu weyneyd ee berri lagugu xasuusan lahaa. Markastana niyadaada ka ilaali meelaha quusta iyo halka aysan ku habboonayn.